haddaba codbixintii baarlamaanka ee shalay ma ku dhacday hab sharci ah eedaha loo jeediyey ra'iisul wasaare xasan cali khayre ma yihiin kuwa meesha ku jiray halkee ayayse tahay in meeshan looga dhaqaaqo su'aalahan iyo kuwa kale ayuu Haaruun Macruuf weydiiyey ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke وماسنتي هارون runtii shalay waa kulay horta baarlamaanku waa waajibaadkiisa xukuumadda yani xukuumadka qaada inay la xisaabtamaan intaas oo leeyihiin laakiin habkii shalay hadda loo maray ka qaadista waxa moodaa inay ahayd hab aan raacsanayn xeer hoosaadka baarlamaanka oo ah xukuumadda marka hore mooshin laga keeno la siiyo fursad ay iyadu maartay isku difaacdo waxyaabo lagu soo eedeeyay kadibna codayn la geliyo markii adigu xilwaanadii soo eedeeyay iyaguna hadlaan marka in codayn la geliyo oo maartay codayntaasi ay xukuumadda ama ku dhacdo ama ay ku kalsooni ay ku sii wado howleeda marka runtii xeer hoosaadka lama sameyn baarlamaanku tirada waa laga yaabaa inay haysteen ay uga qaadi kareen sabab ay uga cabsadaan in mooshin la keeno anigu ilmaha inay meesha jirtay marka waxay ahayd laakiin xeer hoosaadkaas inay soo sababtoo ah sidoo anaga haddii waxyaabaha shuruucda aan ku heshiino inay nahagaan oo aan isku qadarin inay yihiin shuruucdii markaasi aan isku qadaqayn haddaan la ixtiraamin oo aan kalsoonida dadku institutionska dawladda ku qabaan way yaraanaysaa maxay kula tahay sababta ay qaab furan uga doodi waayeen mooshin uga keeni waayeen ra'iisul wasaaraha codkana loogu qaadi waayo qaab furan maxay kula tahay adiga sababtaas waxaa moodaa hadda sida aanu kule aan ka arkay hadda meediada iyo eedeyn oo labada dhinacba inay socoto la leeyahay wasiiradiida marka saasa maartay codkii hore looga galay marka hore laakiin ajento waxa ay laga doodo wax kasta waxa dhacaan mas'uuliyadeeda runtii baarlamaanka qaadaya sababtoo ah waxa la rabay inay xeerka sida uu dhigan yahay ay maraan laga keeno waxyaabaha lagu qabsaday xukuumadda صح ما هين صح ما هين أيضا ماشية أو رنتي وحيابها لقى جابيو دنيا أدى إسكاله وعمل كله لكن حبك الله راعي حيرات كبرلمان كي إن على سوين رنتي حير جرين بهاد وهي أدو داعي شلي madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre labaduba waxay dhowr jeer ku celceliyeen isla markaana waxyaabaha ay ku faani jireen marka ay noqoto wada shaqayntooda waxay ahayd inay midaysan yihiin ayna ka duwanaanayaan qaab wada shaqayntii madaxweynayaashii iyo ra'iisul wasaarayaashii iyaga ka horeeyay laakiin taasi shalay bay dhamaatay maxay kula tahay taas maxaad ka akhrisatay wallahi horta dee markii hore ayaga waxa ka keenay inay saas dhaxaan waxay la tahay inaysan dee khibrad u lahayn dawladnimadu waxa ay tahay moogtahay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare waa inay wada shaqeeyaan laakiin haddana horta annaga foundationka siyaasadeed ee dalkeena wax ka qaldinay sababtoo ah ra'iisul wasaare waxay ahayd majority inuu keeno majorityna ka qaado waxaa moodaa dalka ra'iisul wasaaraha parliamentary systemka ra'iisul wasaaraha ugu muhiimsanaa inuu dalka noqdo qofka siyaasadda haga haddana annaga dhaqankeena parliamentary weeye laakiin haddana waxa moodaa foundationka siyaasadeed in laga hadlaysiin waa imaanaysaa siyaasadda in lagu kala aragti doonaado madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha meelo qaarkood haddii baarlamaankana markaas oo kale waxa loogu talagalay haddii fakarka lagu kala duwanaan oo asaga arrintu galo uu saxo qofka markaas uu isleeyahay aragtida dalka danbay u tahay marka waxay la tahay haddii tii wada jooggaas iyo wixii ballanqaadyadaas kuley hadda waxba kama jiraan waa ka duwanaanaynaa waliba sharci jebinta iyo habka loo maray iyo sida dhaqsada loo qaaday ra'iisul wasaare hadda ka hor aysan soo martay ma jirtaan u malaynayaa adi hadda ka hor way kusoo martay waad iscasishay laba jeer baad ra'iisul wasaare noqotay waayo aragnimadaas ka hadal bal wax yar horta niyo hadee horta waxa yaab leh moogtahay dalkan siyaasadeena waxa weeye mas'uuliyadii dalkan madaxweynaha hay awoodii executive ra'iisul wasaaraha hay marka waa adiga arrin markasta u baahan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay ilaaliyaan balance siyaasadeed isla markaasna ay runtii ku dadaalaan in hadafka iyo higsiga markaas dalka loogu talagalay inay ka wada shaqeeyaan laakiin haddii wax aysan markaas aragti iyo ku kala duwanaadaan waxaa roon in labada qof uu meesha ka baxo sababtoo ah ma sii socon karo dalkana uma fiicna in
isku soo horjeed iyo maaragtay iyo muxuu ahaa ishayn uu kusii shaqeeyo أنا waxaan leeyahay runtii niyo anaga waxaan u baahanahay dastuurkan dhexdiisa inaan inta ku shaqeyno aan runtii clarity wax la dhaho ama tafsiirno oo fasirno exactly awoodaha iyo wasaaraha waxa awood u leeyahay in madaxweynaha roolkiisa haddaynan constitution ku difaan gareen uu imaanaysaa isqabashadan oo maaragtay markaas sababtoo ah wasaare iyo madaxweyne parliamentary system asidoodina uma dhaqmayno presidential iyo parliamentary system isku jiro kaleetaan annaga hadda u soconaa marka taas in la saxo oo runtii dastuur ahaan loo saxo anigu waan qabaa taasaana keenaysa hadda wasaaraha la keeni doono muxuu noqonayaa muxuu wax ka bedeli karaa muuqata qodob aan rabay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan sababta xilka looga qaaday ra-iisul wasaaraha markaan ka hadlayno baarlamaanku qodobo ayay taxeen inuu ku guuldareystay nidaamka federaaleynta inuu la yimaado hab qeexan oo doorasho qof iyo cod ay ku qabsoomi karto iyo qodobo kale dhinaca kale ee ra-iisul wasaaraha iyo taageerayaashiisa iyagu waxay ku macneeyeen in mowqifkii uu qaatay ra-iisul wasaaraha ee ahayd in muddo kororsi aysan dhicin doorashadana waqtigeeda lagu qabto inay taasi sabab u tahay maxay kula tahay adiga labada dhinac waxaa ka jira sababta waxa weeye horta midda tan ah doorashada sideeda horta hoggaan waxa laga rabaa inuu mar kasta runta u sheego dadka iyo dalka meesha wax suuroobay wax suuroobay waa sax inaan laga shaqeynin arrintii doorashada dastuurka inaan la dhamaystirin inaanan muxuu ahaa magaceedii maqaamkii banaadir inaan la samaynin waxayna ahayd sideedaba bishaan hadda July baan ku jirnaa July 2019 ugu dambeyn hadday arkeen sharciga doorashada in oo registrationskii dadka aan la samaynin in inta baarlamaanka la hortago la dhaho ma socon karto waqtigaas kuma qaban karno doorashada aanu raadinno sidii aniga aan yeelay aan raadinno talo kale ee aan 2021 ugu gudbi karno taana lama sameyn laakiin eedda wasaaraha kaligiisa qaadaya arrintaas waa qoshka meesha taagan sababtoo ah baarlamaankana waa joogay madaxweynahana waa joogay waana u wada jeedeen in waqtiga uu socdo wixii loogu talagalayna waqtigeeda inayn lahayn waqtiga registration loogu baahanayo in dadka lagu registereeyo security lagu sameeyo political agreement laga keeno inaysan ku suuroobeynin hal sano gudaheeda marka taas waxay ahayd in runtii si saraaxa ah baarlamaanka ay hor yimaadaan ay ka sheegaan ay yiraahdaan waqtiga kuma qabsoomayo sidii aniga aan yeelay 2022 July 4 bilood 5 bilood anoo joogan hortagay waxa ku yeeday ma soconayso waxaan rabaa inaad fasax isiisaan inaad raadino talada kale aan dalka uga saari karno toona sababtoo ah waxa ii muuqatay Hirshabeelle inaan sameynay ahayd in oo galmudug aan sameynay ahayd in aqalka sare aan sameynay ahayd marka intaas oo dhan inaan sameeyay maqaamka banaadir iyo sharciga doorashada iyo waqtigan haysta isoo keenay baarlamaankan hortagay July 2015 kii waxa ay ma soconayso waxaan rabaa inaan isiisaan kalsoonida aan ku raadin lahaa dalka waana isiiyeen madashan iyo markaas ka dhasheen waxaas marka horta laakiin eedda khayra iyo xukuumaddiisa kaliya ma leedahay anigu ma qabo baarlamaanka iyo madaxweynaha waa la qaban sababtoo ah ayaga ruuxooda waxay ahayd arrintan ilaa dalkan dawlad ayaga kulli waa dawlad hal dawlad weey in arrintan waxay ahayd intay ka wada hadlaan ee arkaan ee dhahan warseed dalka uga saari karnaa waqtigiina waa nagu socdaay markaas ay xal ama benchmarks intay samaystaan ee dhahan saana wax ku wadaynaa lama dhihin saacadii ugu dambaysaa blamekii oo dhan maaragtay waxaa la saaray wasaarihii dhaqankan oo runtii Soomaalida ka jiro hadda anaga mudana na soo waday oo ah wixii fiicanna madaxweynaha leh wixii khasaaro iyo wixii khaldamana wasaaraha leh dhaqankaas wixii inaan ka talaabsano oo runtii eed la wada qaado oo muhiim weeye hadda iyo wixii ka dambeeyay iyo meesha looga dhaqaaqay halkan galmudug iyo dhuusamareeb qodobo ayaa ka soo baxay kulan kalena waa loo madlan yahay baarlamaankuna waxay sheegeen inay iyaga u taalo inay go'aan ka gaaraan nidaamka doorashada iyo qaabkii lagu gali lahaa iyo dhamaystirka sharciga doorashada guddiga doorashada iyo baarlamaanka aqalka hoose oo aad moodo dhinac inay waxyaabaha qaarkood ka siman yihiinna iyaguna waxa ay soo jeediyeen tubta la raacayo maxay kula tahay yaa ugu habboon yaa iska leh hadda wixii ka dambeeya yaa iska leh diyaarinta iyo ka wada hadalka qaabka doorashada iyo sidii lagu gali lahaa waa maxsan tahay hadda horta su-aashan waa su-aasha ugu muhiimsan way hadda meesha tan
nin horta sideeda sharciyada lagu sheegayo sharciga ruuxiisa siyaasadda haddii sharciga uusan siyaasad ahayn maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuuriga iyo 9 qofood inta laga dhigo interpretationka sharciga ama tafsiiraadda sharciga ha loo codeeyo lama dhexin marka sharciga sideeda waxaa ka muhiimsan stabilityga siyaasadeed maaragtay in la ilaaliyo oo wax heshiis lagu wada yahay la gaaro hadda xaaladda taagan meel khatar aan marayna sababtoo baarlamaankiina wuxuu leeyahay waxaan ku soconayaa ilaa aan ka gaarsiiyay dalka doorasho qof iyo cod waqtigii rabta waxa qaadatay dalka intiisii kaleeto xisbiyada siyaasadeed dadka siyaasiyiintii kaleeto iyo dowlad goboleedyada waxay leeyihiin may waqtigeedina ku dhacdo way haddaan maanta la helin qof dhexaada oo waxaan negotiate gareeyay oo runtii aan la isku keenin labadan aragti aan wax lagu heshin ka bay tagaysaa dalka iyo dadkuna waa ku dhibaatoonaya runtii anigu waxaan qabaa hadda wasaaraha imaanaya habka lagu soo xulayo hadday noqoto hab hal dhinac ah oo aan wadatasha laga sameyn oo aan la caddayn awoodaha uu yeelanayo iyo waxa la rabo inuu negotiate gareeyo labadan meel dhuusamayo waxay ka soo baxay iyo baarlamaanka meeshuu taagan yahayna aanan isla fahmin sidii meel dhex loo keeni lahaa runtii waxa aan ku soconaa waa khatar waa anigu qolay talada hadda aan madaxweynaha siinayo waxa weeye inuu consultationka badiyo muxuu ahaa sida lagu soo xulay in la caddeeyo wasaaraha imaanaya awoodaha uu ku yeelanayo miisaanka siyaasadeed iyo sida la rabo inuu u soo tabixiyo dalka haddii kale waxaan qabaa runtii meel crossroadan taaganahay khatara waxaa ka imaan kara runtii dhib aad u weyn annagana soomaalina maanta niyadjab kaleeto diyaar uma aha ummadaas waxay rabaan in wax hore u socoto waxaan rajaynayaa haddii ilaahay inay maskaxda shaqayso in la odayeeyo in runtii laga dadaalo sidii dalka kan xasilooni u dhici lahayd laisugu keeni lahaa meel loo negotiate gareyn lahaa meel laga aadana la aadi lahaa kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo u waramayay Haaruun Macruuf.